assalaamu calaykum. robot ayaa hawshaas hadda kadib qabanaya. erayadaasi in badan ayay dhegaheenna ku soo dhaceen, balse qodobka la yaab kale ayaa ah in robot uu noqonayo mustaqbalka dhow. macallimiinta ardayda waxbaraysa ee duruusta waxbarasho u dhigaysa cajiib. muddo aan sidaasba u sii dheerayn inay garaadka ku soo dhacdo in robot uu goobta waxbarashada wax shaqo ah ka qabtaa waxay ahayd khayaali cilmiyeed oo filasho iyo suuraysi uun ah. balse markii guud ahaanba tiknoolajiyadii ay horumartay, soo saarista robotyadana lasii horumariyey, waxay maanta marayaan heer ay handadaad ku noqdaan. macallimiintii wax dhigaysay oo ardayda waxbaristooda lagu wareejiyo robotyo qaybo ka mida dalalka Yurub iyo Eeshiyana waaba ay ka bilaabeen robotyadaasi inay goobaha waxbarashada xaadiraan oo ay duruuso bixiyaan. markii koowaad ay robotyadu soo xaadireen fasalada waxbarashada, ujeedka loo keenay waxa uu ahaa inay ardaydu si toos ama practical u fahmaan sida ay aaladahaas robotyadu u shaqeeyaan iyo inaanay sixir ahayn ee ay yihiin khawaarizmiyaad ama algorithm xisaabeed oo si isleh la isugu fadhiisiiyey aadamuhuna ay sameeyeen. haddaba waxa waayahan la isweydiinayaa, talow robotkaasi beddel kaafiya ma u noqon karaa macallimiinta oo inta uu meesha ka saaro booskooda ma buuxin karaya? dadka tiknoolajiyadu ay madax martay waxay aaminsan yihiin haa, weliba waxay doonayaan inay aad u horumariyaan oo wax kastaba ay robotyadaasi qabtaan. balse dadka indhaha caadiga wax ku eegaya waxay leeyihiin beddel dhanka wax dhigista wuu uga noqon karaa, laakiin ardayga wax dhiganaya uma baahna keliya cashar in loo dhigo ee waxa uu u baahan yahay qof fahma, indhihiisa xaaladihiisa ka akhrista, kalsooni geliya oo tusiya inuu awoodayo inuu wax fahmo ama uu jawaabo, xaaladihiisa gaarka iyo duruufaha ku xeeran dhaadi karaa. arrimahaasna waxa keliya ee laga helaa waa qof aadame ah uun, waana macnaha inaad tahay insaan. qolyahaas ay tiknoolajiyadu madax martay oo isla qodobkaas ka jawaabaya ayaa leh waxaa jira ama la samayn karaa robotyo beddel u noqon kara macallimiinta oo loo samaynayo awood tiknoolajiyadeed oo ay ku dareemaan xaaladaha ardayda, marar badanna siyaabo kala duwan u sharixi karaa casharka oo ardayda u fahansiin kara. haddaba si kastoo robotyada noocaasa in la sameeyo loogu dadaalayo, waxaa jira qolyo badan oo garanaya macnaha waxbarashada iyo qiimiga macallinka oo ka digaya masiibo inay ku noqon doonto aadamaha, maadaama macallinnimadu aanay ahayn wax dhigis keliya ee ay tahay in qof nool oo aadamaha qaabkii uu fikri lahaa ee noloshiisa inta uga dhiman uu dhaqmi lahaa la baro. taasina aanay ahayn mas-uuliyad uu robot ka soo bixi karo. si guud ahaaneed qodobkaas isaga ah way jiraan dadyow badan oo aad mucaarad ugu ahi, balse maalinaan sidaas u sii dheerayn waynu arki doonaa iyaga oo meelo badan macallimiin ka ah. ee bal mustaqbalkaynu eegaynaa dadka ay robotyadaasi soo waxbaraan jaadka ay noqon doonaan. dhanka kalena shaqada macallinnimo ama xirfadaas oo keliya maaha waxay handadaada ku yihiin robotyadaasi, ee waxaa loo baqayaa tiraba 11 milyan oo shaqo oo laamaha kala duwan ee laga shaqeeyo ah in maraykanka bulshadu ay waayaan oo ay robotyo kaalintooda beddelaan. yacni mustaqbalka shaqada ee aadamaha, weliba caalamka horumarka ku faana, robotyadu waxay ku yihiin halis aad u xooggan. waxaana suure ah inay ku soo marto noloshaada maalin aadan 24 saacadood qof nool oo aadame ahba arag, haddana intaasaad tacaamulayso oo aad cidla nooshahay oo howl aad gacanta ku hayso oo aad safrayso, hoteelaad degayso, tobanaan howloodna aad qabanayso, wakhtigaasoo dhanna aad robotyo la tacaamulayso. intaas aynu soo xusnay ee shaqooyinka iyo robotyadu waa maraykanka uun, ee marka guud ahaan caalamka loo eego marka la gaadho sanadka 2025 waxaa la saadaalinayaa in ku tiirsanaanta ay aadamuhu u janjeersanayaan dhanka robotyada ee ay aadamaha ka doorbidayaan aagaga shaqadu ay gaadhi doonto 50%. isla sanadkaasna guud ahaanba caalamka ay robotyadaasi ka galaafan doonaan 85 milyan oo shaqo. yacni sanadka 2025 85 milyan oo shaqo oo imika ay aadamuhu haystaan ayaa la waayi doonaa. wixii ka dambeeyana marba tiradaasi way sii kordhaysaa. haddaba qolyoyadii diilo wanaagsan ka muujinaya robotyadaas ayaa sheegaya, dabcan waa qolada ay tiknoolajiyadu madax martay ee in shaqooyinka ay robotyadaasi qaban doonaan aanay badigoodu ahayn kuwa hadda ay cidi qabataba, ee ay yihiin shaqooyin ay iyagu aasaasayaan oo iyaga lagu dhagax dhigayo. dhanka kalena ay adduunka oo dhan ka samaynayaan ku dhowaad 97 milyan oo fursadood oo qolada kuwaasi ay kala wareegeen waxyaabihii ay ka shaqayn jireen iyo shaqaale cusubiba ay ka faa'iidaystaan. waxay haddaba khubarada dhanka tiknoolajiyadda ah ku takhasusay ku talinayaan
in ugu horreyn si uu qofku mustaqbalkiisa u damaanad qaado aanu ugu horreyn hal xirfad ay isku hadlaynin ee uu xirfado badan barto si haddii mid ay robotyadaasi ka beerdareeyaan uu tu kale ugu xamaasho dhanka kalena uu qofku xirfadiisaasi lafteeda si horumariyo heer uu ka gaadho cidda uu shaqadaas u hayaa inay ka maarmi weydo oo ay ku dhegto marka uu macaa robotyada ka gudasho wanaagsanaado maadaama saadaal xooggan laga qabo in 80% shaqooyinka iminka la hayo robotyadaasi ay saamayn doonaan daraasado la sameeyey ayaa lagu daahfayday in tiraba 300 oo shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah CEO-yadoodu ama maamulayaashooda fulineed shantii kastaba 4 ka mid ahi ay ku hamiyayaan inay sameeyaan nidaam gebigiisa oo tiknoolajiyad ku shaqaynaya oo shirkadu ay ku tiirsanaato oo dadka inta laga maarmi karayo lagaga maarmo maadaama barigii dhaweed ee cudurkii uu adduunka bandowga saaray ay shirkadahaasi kicitaan qarka u gaadheen sidoo kalena ay ka baqayaan dhaqaale burburkii 2007 iyo 8 inuu mar labaad soo noqdo waxa khubarada qodobkaas daraaseeyay ay xustay in maamulayaashaas fulineed ku hawan yihiin inay sanadka 2025 shaqaalaha shirkadoodaas dadka iyo robotka si siman ugu qaybin doonaan oo 50 iyo 50 ay ka kala dhigi doonaan intaas wixii ka dambeeyana aanay saadaal sidaas ahba u sii baahnayn xanuunkaas koronaha ayaa sababay inaad loogu baahdo in laga maarmo shaqaalaha dadka ah intii karaan ah oo shaqaale robotyaal la sameeyo si dadka bandowga la saaray aanay shirkaduhu ula degin oo aanay ula maran taas ayaana sababtay in saadaalahaas oo dhammi ay soo baxaan markaynu nimaadno waaqaca Soomaaliyeed subxaanallah malaha in aynan kaba hadal ayay ku qurxoon tahay yeelko maanta dalka Soomaaliyeed qofku shaqo uu samaystana kuma badbaadayo shaqana looma samaynayo shaqa la'aanta jirta waa mid cid waliba ay hadal hayso waxaan ka qayb galay tiraba 3 doodood oo lagu kala aragti duwan yahay dalka ma shaqo la'aan ayaa ka jira mise shaqaysi la'aan ayaa ka jira balse su'aasha asalka ahi ma aha shaqo la'aan iyo shaqaysi la'aan ee habfahanka ama su'aasha loo baahan yahay in aynu fahanno ayaa ah ma nahay ummadu diyaarsan shaqaysi ama caqliyad tabcasho iyo waxtaran sire oo adduunka wax la qaybsanaysa taas marka jawaab loo helo ayaynu kala garan karaynaa dalka ma shaqo la'aan ayaa ka jirta mise shaqaysi la'aan habnololeedkeena qoysnimo ma aha mid u diyaarsan inuu soo saaro qof u diyaar ah inuu tabcado oo uu adduunka wax la qaybsado ee nidaamka qoyskeenu waxa uu soo saaraa qof kalsoonida lagaga soo tuntay aan is-aaminsanayn aan karaankiisa garanayn gurigiisa 10 magac oo xunxun loogaga yeedho meesha uu inta ku leeyahay farta loogu fiiqo oo bahda laga saaray yacni qof wixii uu adduunka wax kula qaybsan lahaaba gurigooda lagaga soo meedhay ayuu nidaamkeena qoys soo saaraa nidaamkeena waxbarashana in badan waynu ka hadalay oo waxba ka sheegi mayno oo isagana waad garanaysaan waad qiyaasi kartaan qofka uu soo saaraya nooca uu yahay nidaamkeena bulsheedna waaba ka qofka shaqaysta shaqadiisa lagu caayo ka wax shaxaadana lagu ammaanayo ee la odhanayo waa nin rageed oo uu ku boobaya oo sida raggu wax ku weydiinaya yacni dhan qoyseed dhan waxbarasheed iyo dhan bulsheed midna caqliyad ahaan uma diyaarsanin inaynu shaqayno hagaag adduunkii waxaa la saadaalinayaa 5 sano wax ka yar kadib in badiba shaqooyinka aynu naqaano ay robotyo la wareegayaan su-aashu waxay tahay markaa ma waxaynu sugaynaa inta wax laga shaqeeyo iyo xirfad wax lagu kasbadaaba aanay hadhaynin ilaan xirfad aqooneed ma lihin mid farsameed ma lihin waana taas adduunkaba dadkii shaqaalaha ahaa mustaqbalkoodii ay calaamad su-aashu saaran tahay mar kasta ood waaqaca Soomaaliyeed u fiirsato wax xumaanaya ayuunbaad arkaysaa wasalaamu calaykum